السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ميل كستو أجوكتان كسو دوادا وركي عالم كو إذن كغي إيمانيا بلغاس ميديا أنيقو عبد الرساق بلغاس أيا وركي إذن لسعود سين دونا قضبادا وراركا أغدور كرونا وحا كمدا xogayaha amuraha dibadda ee dalka Mareykanka oo dib u dhigay booqasho uu ku tagi lahaa dalka Shiinaha taasi oo lagu sababeeyay buufin weyn oo basaas ah oo Shiinaha laga leeyahay oo ku soo xadgudbay hawada dalka Mareykanka. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo markii ugu horeysay la kulmay hogaamiyaasha Tigray tan iyo markii heshiiska nabadda u dhaxmaray. Mareykanka oo ku amaanay Turkiga xiriirka kala dhaxeeya xilli dawladda Turkigana ay ku eedeynayso Mareykanka inuu maleegayo shirqool ka dhan ah dalkaasi Turkiga. Haweeney uur leh iyo ilmo 4 bilood jiray oo ku geeriyooday masiibo ka dhacday badda Mediterranean-ka. Daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka ugu doorka roona haatanna isagii oo fidsan. xogayaha amuraha dibadda ee dalka Mareykanka Mr. Blinken ayaa waxa uu baajiyay booqasho uu ku tagi lahaa dalkaasi Shiinaha iyadoo taasi lagu sababeeyay in buufin weyn oo laga leeyahay dalkaasi Shiinaha oo dawladda Mareykanku ay sheegtay in uu basaas yahay lagu arkay hawada dalka Mareykanka. Xukuumadda Washington ayaa waxa ay sheegtay in buufinkan basaaska ah ee Shiinaha laga leeyahay ee lagu arkay hawada Mareykanka oo xadgudub aan la aqbali karin uu ku yahay madax bannaanida dalka Mareykanka. xogayaha amuraha dibadda ee wadanka Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu dib u dhigay booqashadii uu ku tagi lahaa Shiinaha. dawladda Mareykanka ayaa xaqiijisay iyadoo ku sababaysay baajinta booqashada xogayaha in buufinka basaaska ah ee Shiinaha ee lagu eedeeyay hawada Mareykanka inuu ku soo xadgudbay uu ahaa markaasi mid aan dawladda Mareykanku aysan aqbali karin isla markaasina ka dhan ah madax bannaanida wadan. sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Mareykanka ayaa sheegay in xaaladan aysan sax ahayn. booqashadan oo lagu waday in ay bilaabato Axadda sababo la xiriira duulimaadka buufinta mas'uuliyad darrada ah ayaa loo baajiyay. Shiinaha ayaa geestiisa muujiyay sida uu uga xun yahay buufinkan soo galay hawada Mareykanka isaga oo ku sifeeyay in uu yahay buufin rayid ah oo loo isticmaalo cilmi baarista saadaasha hawada kaasi oo ka leexday dhabadii la qorsheeyay sababo la xiriira awoodda ishayidda oo xadidan. laakiin maamulka Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in buufinkan duulaya uu yahay mid basaas ah oo joog sare ku duulaya lagana leeyahay dalkaasi Shiinaha. Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu markii ugu horeysay ula kulmay hogaamiyaasha Tigray tan iyo markii heshiiska ay kala saxiixdeen. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa markii ugu horeysay la kulmay madaxda Tigray tan iyo markii labada dhinac ay heshiis nabadeed ay kala saxiixdeen 3 bilood ka hor. sawirro ay baahisay warbaahinta dawladda Itoobiya ayaa muujinaya Mr. Ahmed iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda oo la fadhiya dadka ugu sarreeya qowmiyadda Tigray oo uu ku jiray taliyaha ciidamada Tigray generaalka lagu magacaabo Tadesse Wareede. waxaa la sheegay in ay ka wada hadleen horumarka laga sameeyay hirgelinta heshiiska nabadda iyo sidoo kale arrimaha u baahan in fiiro gaar ah loo yeesho. heshiiska ayaa soo afjaray dagaal sokeeye oo socday muddo 2 sano ah kaasi oo halakeeyay gobolka waqooyi ee wadankaasi. kulanka ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay goob loo dalxiis tago oo ku taala koonfurta dalka Itoobiya. dawladda Mareykanka ayaa waxa ay ammaantay xiriirka kala dhaxeeya dalka Turkiga xilli dawladda Turkigana ay ku eedeynayso Mareykanka in uu maleegayo shirqool ka dhan ah Turkiga. ergey Mareykan ah ayaa waxa uu bogaadiyay xiriirka Turkiga kala dhaxeeya dalkaasi Mareykanka isagoo saaran markab dagaal oo ku sugan deegaanka Bosporus ee dalkaasi Turkiga. isla waqtigaasi wasiirka amuraha gudaha ee dalkaasi Turkiga Suleyman Soylu ayaa waxa uu ka eedeeyay safiirka Mareykanka inuu maleegayay shirqool ka dhan ah Turkiga. ergeygu waxa uu saarnaa markab dagaal oo dalkiisu u soo diray Istanbul si uu u soo booqdo dekedda la qorsheeyay. isagoo warbaahinta kula hadlaya markabka USS Nancy J. Flake ayaa waxa uu ku tilmaamay mid cajiib ah oo muujinaysa iskaashiga uu Mareykanka
uu la leeyahay Turkiga. Nitsi waa markab weyn oo dagaal oo gantaalaha xambaaraha kaasi oo la sheegay in sidoo kale uu gantaalaha uu burburiyo, waxaana iminka uu ku xiran yahay dekedda magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga. Markabkani ayaa waxa ujeedkiisu uu yahay amaba meesha loo keenay aaga howlgalkiisa si ay u difaacaan xulufada iyo danaha shuraakada ee NATO. sidoo kale abaanduule Katia Jacobson haweeneyda lagu magacaabo ayaa waxa ay ka dhawaajisay sida ay ugu faraxsan tahay joogitaanka Istanbul iyadoo ku tilmaamtay Turkiga xulufo aad u qiimo badan iyo saaxiibka badda ee NATO. geesta kalena Turkiga waxa uu sheegay in wadamada reer galbeedka oo ay ku jiraan Mareykanka iyo Jarmalka aysan siinin wax xog ah oo ay ku xaqiijinayaan sheegashadooda ah in khataro dhanka ammaanka ah ay ku kaliftay inay xiraan howlahooda shaqo ee dalkaasi. wasiirka amuuraha dibadda ee dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa waxa uu sheegay in laga yaabo in wadamadani ay isku dayayeen in Turkigu ay ka dhigaan dawlad aan xasilooneyn markii ay si ku meel gaar ah ay u xireen safaaradaha iyo qunsuliyadaha ayna soo saareen digniino dhanka socdaalka ah kadib dhacdadii kitaabka Qur'aanka lagu horgubay safaaradda Turkiga ee dalkani Sweden. haweeney uur leh iyo ilmo jira 4 bilood ayaa waxa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen masiibo ka dhacday badda Mediterranean-ka. saraakiil iyo dad goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in dhibanayaasha ay qabow iyo gaajo ay kala kulmeen doonida ay saarnaayeen qaxootiga iyo muhaajiriinta. haweeney uur leh iyo ilmo 4 bilood jir ah ayaa ka mid ahaa dhowr dhibane oo ku dhintay doon ay saarnaayeen qaxooti iyo muhaajiriin maraysay bartamaha badda Mediterranean-ka sida ay sheegeen saraakiil iyo goobjoogayaal. ilaalada xeebaha Talyaanigu waxa ay heleen 8 meyd, 5 rag ah iyo 3 dumar ah goor dambe oo khamiistii daraad ah. 42 qof oo badbaadayna waxa la keenay xeebta. Filipino Manino oo ah duqa jasiiradda Lampedusa ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP ma cadda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay masiibadan. rabshadaha Israa'iil iyo Falastiin ayaa waxa lagu soo waramayaa in meel xasaasi ah ay marayaan. ergeyga qaramada midoobay ee magaalada Qudus ayaa waxa uu ka digay in rabshado isa soo taraya oo ka socda Israa'iil iyo dhulka la haysto ee Falastiiniyiintu ay xaaladda qarka ay gaarsiisan tahay meeshii ugu sarreysay. waraysi uu siiyay BBC Tor Wennesland waxa uu ku baaqay faragelin adag oo diblomaasiyadeed si loo joojiyo dhiigga daadanaya. waxaa sidoo kale uu ka digay in ay sii xumaato taageerada caalamiga ah ee maamulka Falastiin. qaramada midoobay ma qaadi karto mas'uuliyaddan, ma maamuli karno Falastiin, ayuu yiri ergeygan. bishii la soo dhaafay in ka badan 35 Falastiiniyiin ah iyo 7 Israa'iiliyiin ah ayaa la dilay kadib sanad ay socdeen rabshado isdaba joog ah oo ay ku lug lahaayeen baaritaano iyo qabqabasho military oo Israa'iil habeen iyo maalinba ay ka waday dhulka Falastiiniyiinta. arrintani waxa ay ku soo beegmaysaa xilli maamulkii ugu mayalka adkaa ee abid soo mara dalka Israa'iil oo iminka ka talinaya wadankaasi. daawadayaal, warkii caalamka oo aad kala socoteen Bulqaas Media oo idinla socodsiinaya anigoo Bulqaas ah, intaasi ayuu inooga egyahay. inta aan warkan oo kala aynu ku kulmi doono waxaanu idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.